waa maalin kale oo aan goobjoog u ah mid ka mid ah kiisaskii ugu yaabka badnaa abid. Cabdifataax Cali Cumar waxa uu dhawaan ka soo muuqday warbaahinta isaga oo lala xiriirinayay dhac uu u kala yeelay haweenka, laakiin xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ciidamada la keenay eedo kale oo ay ka mid yihiin argagixisanimo, kufsi iyo isku day dil. midii saddexaad dhaca magaalada oo muxuu ahaay aan ka dhacay moobeelada oo lagu soo eedeeyay waxba ka jira waxna kama jiraan. waxa ka jira inta aniga aan ogahay oo kiis ah 30 kiis waay aniga ii qoran oo meelna igu yaal haddii qof bini'aadan igu sheegtay inaan si diyaar aan u ah. tirada haween ee dhibanaha u ahayd sanaha ee ay diiwaan geliyeen saldhigga booliiska Hodan ayaa ka badan 60 dumar ah. qaarkood ayaa dhageysanaya dacwadda halka kuwa kalena ay maxkamadda kaga sheekeynayaan dhibtooda. idilaan dhahay anigu waa qalqalay intaas dhan waa cabsaday gaarigu ina waday gaariga markuu cabaar la wada hal saac amal gaarigii saarnaay ninka inuu idilay markaa arko wax kadib intuu ila istaago oo hanjabaayo inuu idilayna markaa arkaa anigu waxa sameeyay dhaqdhaqaaq dagaal aan sameeyay daaqada fur waa soo celiyay markuu soo celiyay meesha oo afduubta meel u dhow igu soo celiyay markuu igu soo celiyay meesha wuu istaagay gaariga meel istaagsaday daaqada furo ma daaqada lugta ka ritaani daaqada markaa lugta ka ritay waa qayliyay markaa qayliyay ninkan gaarigiisa wato uu la cararay an gaariga ka dhacay wuxuu iga qaatay laba telefoon iga qaatay mid G4 Plus waaye midna waxa waaye A22s waa kaas isla markuu afduubtana markaa oo soo ardo markaas wiila uu imaado meel joogay booliska iyo wacaadaha booliska lambarka 99 hal soo wacay 10 daqiiqo kadib waxa la soo sheegay ninka in la qabtay. ciidamada amniga ee gacanta ku dhigay eedeysanaha ayuu ku dayay bilowgii hore laaluushu kaga baxsan kara gacmaha sharciga. waxaan la wadaagay saraakiishii iga sasareysay ilaa iyo qaybta ilaa gobolka oo markaas fadhiga ku wada sugan waxaan u sheegay inuu noocaas la dhaqmay waa la wadaagay kadib waxa la yiri hadii macquul ay ka tahay wax sax ay ka tahay u tag lacagta ka soo tuur waa u tagay waxaan ku iri waa soo dhameeyay maxaa waxa ii sheegaysa aaway si sax ay ka ahayd lacagtii wuxuu ii tuuray lacag $2,000 ah kun wuxuu iigu tuuray salaam bangiga iigu tuuray lacag kale oo wuxuu ka tuuray Somnet oo wuxuu iigu tuuray 500 iyo 500 lacagta oo salaam bangiga kunku iiga tuurana magac kale ugu qoran lambarka Somnet kana magac kale ugu qoran laba magac oo kala duwan ugu qoran marka aan hadda fiirshay lacagtiina waa soo daawacay salaam bangina warqadii aan ka soo saaray waxaan ku wareejiyay baarihii saldhigga lacagtii 2000 ahayd. ciidamo kale baarihii kiiska iyo dhibanayaal ayaa iyana maxkamadda ka sheegay inta ka qosayso dhacdadan la yaab kale. maxkamadda waxaan ka codsanayaa cadaaladii sharciga waxay tahay ninkaas in la imariyo anigu uu ceejiye tarxaddu igu ceejiye isbitaal Madiina tagay hay dawal ii soo qoray dhibaatada iga silaayo wallahi hadda waa shoogsanahay. Gashaale Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sharaxay hab dhaqanka eedeysanaha koowaad. shaqadii shaab uu hayay markuu ku soo fashilmay oo halkan yimid isaga uu doortay maadaama loo diyaariyay asalkiisa dhibaataynta dadka inuu halkiisa ka sii wato ma taqaana waa tan lagu soo qabtay soo faraha kula jira hadii taa aan ka soo taga shabaabnimada qodobka kale ah burcadnimada su'aal ma laha eedeysanaha waxa la qabtay isoo faraha kula jira eedeysanaha waxa lagu soo qabtay isagoo wata agabkii dharkii moobeeladii ay dhikaar dukumiintiyadii lahaayeen dhibanayaashii uu soo dhacay isagoo wata la soo qabtay macnaheedu wax su'aala oo arinta leedahay isaga maxkamadda ka hor qirtay 30 kiis oo kamida inuu dhacay oo yaani uu gacantiisa ku geystay maxkamadda ka hor qirtay. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kami ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha koowaad loo ciqaabo dambiyadii uu galay maadaama uu ka tallaabay sumad kasta oo wanaagsan ee uu lahaa qof bini'aadam ah. Kenya waxa uu ka hayay waayo cajiib waxa ah erayada qiraalkiisa uu ku sheegay oo uu leeyahay masaajid baan waxaan ka ahaa khatiib imaam baan ahaa qofka bini'aadamka xad buu dhaafaa dhinacii diinta mid ay celinaysa maahan ilaa xad uu gaaray khatiib inuu noqdo maantana inuu dadka dhaco gabdha inuu kufsado xaraan ku kufsado dariiqa dhexdiisa waxaasoo dhan waxay ku muujisay shakhsiyad wax reebaya wax ka reeban aysan jirin inuu leeyahay inuu dadka dilaan taas waa wax cad
saadagteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanta oo qodobada aan ku soo eedaynay ee aayaadku ay qorayaan in lagu xukumo eedaysana cabdifataax eedaysanaha labaad eedda waxaa ka khaldan qodobka burcad asaga kumaanaan eedayn waxaan ku eedaynay 504 oo gadasho hanti tuuga ah inuu gacan ku siiyey ninkaas hantida uu soo xado waayo qof bani aadama oo ku dhahay telefoonaan ka gataa ninkan maalintii hal xab uu keeni karaa hadduu ugu bato bishii hal xab qofka telefoonka iska bedeli karaa maalin walba 3 telefoon 2 telefoon buu ii keeni jiro telefoon afkiisu ka qirtay taa waxay ku cadeynaysaa qalabka tuugada oo dadka ka soo dhaco ninkii uu iibinayay inuu isagu yahay isagana 504 ciqaabta ku qoran ayaan weydiisanaynaa maxkamadda inay ku xogto qareenada u doodaya eedaysanayaasha ayaa ku dooday in marka hore la helo cid ka baxsan cidda dacwoodaha ah iyo la dacweeyaha halka eedaysanaha labaad aan dembi looga dhigin dhaqan ka jira suuqyada Muqdisho waxaan codsanayaa maxkamaddu in aysan aqbalin cabdifataax qodobka lagu eedeynayo oo ah shabaabnimo sababtuna ay tahay caddayla'aan ajligeer in aysan aqbalin codsiga xeer ilaalinta haddii aan u gudbo qodobka 484 حاشا لله يا عبدي وحو قرتي إنه ضد لعي هنتي تورانا قاتي هديب أو قرالي هاي وحن عطسنا يا إن لا فيرشو قضبك أفرتناد أو متغان إن أو بقرالي هاي دنبك إن أو قيستي بريغانا وحي لقول لي هاي أي حقوق iyo ma raahul qudaatu wax allaale iyo wixii qaaliyaalku ay ma taqaan maslaxad u arkaan adooba qiraal yahay in lagu oofiyo arinta dhaca muwakkilkiigu wuxuu ogal yahay 30 mobile inuu qaatay arinta wuxuu ka ogol yahay 30 mobile ma jiraan 63 qof mise 65 qof ay dhac loo geystay xafiiska calaamatu leeyin eedaysan wuxuu ogol yahay 30 mobile sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maadaama muwakkilkiigu uu ogol yahay inuu qaatay 30 mobile inay maxkamaddu ku xukunto 30kaas mobile maxkamaddu waa maasanta la raacayaan shak la'aanta ay ka qabaan daraadeeda qofkii la dhacay بماداما أنا توجي فهم واي قفك واحد قدنا يسافر فهمه ما دي كرته أنا هذا هذا قف لبسن أو نركز وتوذاد واحد أو ألعاب كو كانسل بقول جرا دا كو كانسل سفد كسوق شيء هذا مو يدينيس لكن أنا هذا توجو هذا أم أقولش كذا معقول معه gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare xasan cali nuur shuuta ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo saacado badan qaatay dhageysiga garmaqalka ka ah eedeysanayaal cabdifataax cali cumar iyo cali xasan xirow intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso wabillahi tawfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka Muqdisho